السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشينا شرفت لك soo dhawaada barnaamijkeeni doorka haweenka oo aan ku qaada dhigno arrimo badan kuwaas oo bulshada wax badan u taraya maanta barnaamijkeena waxaan ku qaada dhigaynaa urur ka dhisan dalka Canada oo maanta uu nagala joogo xubin kamid ah xubinta ururka soo dhawow Cabdinaasir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان داودياشا بهذا تيفين أفريقيا نيوز والسلامين وندوها ولا آدي هذا مهتم هاي عبد الناصر دعالة عبد الرحمن أودكت جامعة إفريقيا العالمية كلية معادن والنفط آد بنكوسو دوينيا برنامج كينا دور كهوينكا كاس أنت بدنا قاعدة دقنا أرمها هوينكا برنامج كينا ما أنت محاربنا إن قاعدة دقنا أما واحد بدنا كأوجانو ururka loo yaqaano Global Somali Youth Association kaasoo xaruntiisu ay tahay magaalada dalka Canada sida maqaal nagu ah ama aan maqalno ururka waxa madax ka ah gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaan Faiza Ali Cabdi waxaan jeclayn inay Faiza naga qayb qaadato barnaamijka balse arrimo soo baxay ogeed baysan noogu iimaanka nooga soo qayb qaadan karin balse maanta adiga waxa ka tahay safiir ama qofkii u fadhiyay ururka magaalada Suudaan dalka Suudaan Cabdinaasir markii ugu horeysa faahfaahin guud naga sii ururka iyo sidoo u shaqeeyo horta saad tilmaamtay taxaabtay ururka waxa gudoomiyaha oo ah haweeney amba maamada ururka waxa weeyaan Faiza Ali Cabdi ama say dadka qaar u yaqaan Maryan Ali Cabdi wuxuu ahaa asaaska ururka salka oo ahaa amba wuxuu ka shaqeeyaa waxyaabaha khayriga amba caawinaada dadkeena Soomaaliyeed iyo sidii uu isku xiri lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed bar amba il u soo iftay dhalinyarta Soomaaliyeed oo muraayada iska daawan karaan ay ka wada shaqeyn karaan noqoto aad iyo aad sida noo sheegtay anagu baanta barnaamijkeena haweenka iyo Afrika laha doorka haweenka waxyaabaha haday noqon lahayd siyaasadda dhaqaalaha dhinac walba oo haweenka uu ka hadlaa marka waxyaabaha ugu badan aan ururkan u dooranay inaan ka hadalno waxa kamid ah maadaama ay Faiza sa sheegtay ka tahay madax iyada xilliga la aas-aasay ururka yani waxyaabaha u dooranay waxa kamid ah Faiza oo ah haweeney iyada gabar Soomaaliyeed oo wax badan ka og ama wax badan rabta inay dadkeeda u qabato marka guud intaadan ururka galin si gaar ah Faiza iyo sidee wax u qabataa iyo waxay tahay ma noo faafahin kartaa haddii aynu soo qaadano horta ururku wuxuu aasaasmay taariikh asaaskiisa bishii 3aad 25kiisa 2018 waxaana aasaasay uu ahaa walaasheen Faiza Ali Cabdi Faizi sidaan anigu aqaan waa qof farta karti leh oo qof leadership oo hogaamiye ruuxi ah marka la yiraahdo memberska maxay ahayd iyadoo meelo kala duwan la joogo oo xilliga horta aanu bilaabanay waxaan ku bilownay cadad yar fikir kasoo umkamay oo kasoo baxay walaasheen Faiza Ali Cabdi in badan ay rajeenaysay laakiin isku dayday markii dambe inay u soo bandhigto dadka si ay ula wadaagto dadka Soomaaliyeed Faiza ka hor bishii 3aad gudaheegii ayay in badan soo hadal qaaday khayr Allah siiyay waxa ku sii dhiirigelisay habaryarteed say noo sii taxaabtay oo maxay wasiirka caafimaadka galmudug ah بعدين maxay Faiza waxay go'aansatay in markii dambe ururka asaaskiisa iyo unkadkiisa sameeyso في النهاية maxay ururku asaasmay Faiza laakiin waa qof kaga duwan haweenka kale asoodan kartid xagga hoggaanka talabaad waa qof walo ururka ka jira si gaari si guud booga warhaysa waa qof kasto ururka kamida xaaladiisa wuxuu ku sugan yahay oo dhan maxay ka wada warhaysa taasina waxay caawin karaysaa qofku markuu uu hogaamiyo kiisa hoose ilaa kiisa sareeyo ka warhayo qofku waa hogaanku waxa loo yaqaan strategigu markaliyo wada dhaqaaqi karaya waa qof shakhsiyad maxay ahayd u gaar ah oo oran karno shakhsiyad haweenka ka soo ifbaxday oo ah hogaan dhaba oo dhammaan maxay ururka meel u jihaysay aad iyo aad waa mahadsantahay Cabdinaasir urur kasta marka la aasaasay dan baa loo aasaasaa ama ujeedo gaar ah laga leeyahay
ururkan hadda Global Somali Youth ujeedooyinka loo aasaasay maxaa kamid ah ururka saddex ujeedo loo aasaasay saddexda ujeedo ugu weyn waa isku xidhka dhalinta Soomaaliyeed meel kasta iska joogaan yani dhalinteena Soomaaliyeed sidii la iskugu xidhi lahaa sidii iskugu xidhman lahayd sidii iskaga warhay lahayd sidii u noqon lahaayeen dad meel kasta ay dunida ka joogaan maxaa hayday isku xidhma qodobka labaad waxa weeyaan caawinta dadkeena tabaalaysan يعني waxaan naqaanaa amba ha noqoto dagaalo sokeeyo oo dhacay ama qaraxiyo intii dambe maxaa heeday oo lagu aqoon laakiin ururada maxaa sameeyaa ay jiraan maxaa heeday sidoo kale musiibooyin dabiici sida maxaa heeday daadadkii fatahaadihii sidoo kale maxaa heeday majaacadii amba abaarihii dhacay waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen sidii loo aasaasi lahaa u noqon lahaa mid ka qayb qaata caawinta ta saddexaad oo ah maxaa hayday wacyigelinta dhalinta Soomaaliyeed sidii loo wacyigelin lahaa ay u noqon lahaayeen qaar maxaa hayday markasta de xagga wacyiga oo maxaa hayday u dhisan yahay saddexdaas ugu muhiimsan saddexdana iyagoo faahfaahsan insha Allah waynu geli doonaa hadda intii la aasaas ururka maxaa u qabsoomay marka horta waxa noo qabsoomay kow isku xidhkii oo isku xidhka waxaan filayaa maalintaan asaasanay in 5 qof ahayd يعني بالك بعد إلا 10 qof إلا 12 qof waxaan xasuustaa mar aan aniga iyo Faysa iyo gabar kale oo Nasrallah Canada isla joogeen bacdeen Canada ayaa nagu soo badatay maxaa yeelay Canada ilaa 8 qof oo Canada ah iyo 2 qof oo 2 wiilo Jarmal jooga iyo aniga oo Khartoum jooga laakiin waxaad filaysaa yani muddada yar 6 bilood ka bacdi wax badan inuu qabsoomay xagga isku xidhka oo way Khartoum imika dad fara badan baan ku leenahay sidoo kale Canada oo memberkiisa yahay oo maxaa hayday xaqii laga asaasay yahay oo dad fara badan ku leeyahay sidoo kale Talyaani dad fara badan joogan sidoo kale maxaa hayday Turki dad oo xogaay joogo sidoo kale maxaa hayday Sweden dad baa jooga sidoo kale maxaa hayday Jarmal dad baa jooga taas waxay ku cadeynaysaa sidoo uu amba qaaday amba isku xidhkii wali u jooga sidoo kale waxayna loobi karin magaalooyinka Soomaaliyeed oo sida Hargeysa dad fara badan baa jooga sida Laascaanood dad iyaguna sidoo kale jooga Muqdisho kale si maxaa yeelay dad baa jooga Boorama kale ilooymayno Garowe yani Djibouti Jigjiga maxaa yeelay Garissa iyo Nairobi dhammaan geeyiga Soomaaliyeed ka degto dadkii waxa la moodaa meel ay iska wada dhaxarkeen waa meel dhalinta isku wada xidhasa oo dhalintii isku wada keenaysa waa meel ka reeban يعني قوب سياسة أي نقطة قوب دالنتا يكون كلانتو مرايد إسكا ودا دحركان مرايد أي إسكو حرم كران ودنوه غار كأه يعني إيه إسكو حرم كدالنتا Soomaaliyeed يسيد وان بقاد الهيان أي نقطة طلبات أو عاونت دادك تباليسان أو محا هيدي وحيابها نوقف سوى حكم إذا لبا تشير أو محا هيدي أنو عاوني داد Soomaaliyeed كو تيكو waxay dhacday bishii shanaad rabadaanta dhexdeedii في الله الحمد waa markii noogu horeysay isku daynay inaan maxaa hayday ka qayb qaadano caawinta dadka Soomaaliyeed taasoo maxaa hayday aan ka qayb qaadanay magaalada Muqdisho dadkii qaraxyadii wax ku noqday aan kala qayb qaadanay farxadda bal dadkii ku agoomay qaraxyadii inaan bal la faraxno dhalinta yar yar kobacay soo koraysa talabaad waxaan noo qabsoomay koodii looliyo kulan ka dhacay magaalada Calgary oo isku laga tashanayay urur sidoo u noqon lahaa maxay hayday urur hana qaada jiritaankiisuna de meelo fara badanna maxay hayday ka sii jiri doona ta saddexaad waxyaabaha kale oo qabsoomay waxa kamid ah caawintii bishan gudaheega oo waxaan bishiina soo dhaaftay gudaheega jeeda oo maxay hayday ciid carafo aan kala qayb qaadanay dadkii daadadku ku fatahoobay maxay hayday gobolka maxay hayday Awdal Boorama maxay hayday waan rajaynaa wax fara badan inay noo qabsoomaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa oo imika inuu noqdo community in loo aqbala urur yani community sidiisa uga jira Canada ah oo maxay ahaa aqbalidii koowaad ee dawladda Canada ay soo aqbashay laakiin intii kale hadhay jira aada in insha Allah dhameystirmo
aad iyo aad waa mahadsantahay. Sida noo sheegtay isku xir baa tiri, yani hadda meelo badan baa ka dhawaajisay in ururku dad u joogaan. marka isku xirkaas ma sidee iskugu xiraa, ma dhinaca social mediaha, ma telefoon baa la iskala xiriiraa, yani sidee isku xirkaas u dhacaa? dhowr jeerba waxa sidaynu tilmaamnay isku xirku wuxuu ka dhacayaa kulley dee maadaama dadkii ay kala joogaan daafihii dacalada Afrika, Aasiya iyo maxay ahayday America iyo Yuruba. bacdeen waxa weeyaan groups baa jira, group xagga maxay ahayday dadka oo xagga Messenger-aha iyo group xagga maxay ahayday WhatsApp-ka. sidoo kale waxaa jira group keelun xagga tawciyada oo Facebook isaguna aan ka dhinayn oo xagga dadka laga wacyi geliyo. group seen tilmaamay bishii saddexaad markaan bilaabnay afraad waxaan hayn waxoogaa tiro yar, laakiin hadda waxaan maraynaa ilaa 150 dad ku dhawaanu nahay. sidoo kale page-ka Facebook maxay ahayday tawciyada laga sameeyay amba wacyi gelinta laga sameeyay, dhalinta laga wacyi geliyo, dhalinta horumarka si uu sameyn lahaayeen, waxyaalaha qabsan lahaayeen. imika 3,300 oo qof ay marayaan, yani waa masaafo in fara badan ayaa maxay ahayday la jaray. waxaan rajaynaynaa dee higsiyaad intaa kasii fara badan inay wax badan intaa imika noo qabsanto in ka fara badan ay noo qabsanto hadda rabbiid. aad iyo aad hadda ururkan aqoonsi dhab ah oo haddii ay noqon lahayd dowladda Canada ama dowladda yani meeluhu raba inuu ka shaqeeyo ma haystaa oo muu bilaabay inuu aqoonsi helo? kulley hadda waxaa ku guda jirnaa dowladda Canada warqaday soo dirtay. warqadahaas oo ah sidii loogu aqoonsan lahaa yani community kamida community-yada maxay ahayday Canada, waliba khaasatan kasii jira gobolka Alberta, Calgary. hadda ijraa'aadkii waa lagu jiraa. intii koowaad warqadihii koowaad way soo saxeexeen, laakiin wixii dambe waa maxay ahayday la rajaynayaa. sidoo kale waxaan rajaynaynaa in insha Allah goob kasta Sweden waxaan ka rajaynaynaa inuu xarun ku yeesho oo weli maxay ahayday dhalintu waa isku xidhan tahay, wayna abaabulantay, laakiin weli cudwi ahaan amba rasmi ahaan looma maxay samaysan. sidoo kale Jarmal dhalin fara badan oo ka qayb qaadata waa joogtaa. sidoo kale maxay ahayday Turki baanu ka reebi karin, dee magaalooyinkii Soomaaliyeedna lagama reebi karo, iyagu waa meelaha mimbarka asaasiga ah ee la iska soo dhex arkay ee maxay ahayday badanka ka qayb qaata. hadday noqoto maxay ahayday wacyi gelin, iyo hadday noqoto maxay ahayday caawinaad, iyo hadday noqoto isku xidhba. weli waxaan filayaa inay ayaga yihiin magaalooyinka Soomaaliya yani meelaha ugu badan oo loo aasaasayba yani dadkeedii oo caalamka ku kala faafay si la iskugu xiro, yani sida hadalka aan ka dhex maqlay. sax yani waxaa tiri ujeedooyinkiisa waa noo sheegtay iyo sida uu shaqeeyo. marka mustaqbalka dhow muxuu hiigsanayaa ama uu rabaa ururkan inuu gaaro? ururku sidaan tilmaamnay 3 qodob buu ka duulaya. waxa weeyaan isku xidhnaanshaha dhalintii, yani dhalintii maadaama duruufo timid 7 sano ugu dambeeyay geega Soomaaliyeed, ha noqdaan dagaalo sokeeye, ha noqdaan mashaakil noqoto camal la'aan ah, ha noqoto dadkii Soomaaliyeed inay ku kala firdheen 7 qaaradood adduunka, oo ay noqotay dadkii oo dhan sidii la iskugu soo xiri lahaa, sidii doon kaliya la iskugu keeni lahaa, iyadoo intaasoo dunida la kala joogo haddana doon kaliya oo bad kaliya wada maraysa loo qaadan lahaa. bacdeen maxay isku xidhkaasi inuu noqdo mid daafaha dunida meel kasta oo Soomaali joogto mid isku xidhan oo maxay ahayday insha Allah tis qaada oo maxay ahayday dhammaan ay Soomaalidoo dhan iska wada aragto. ururkan sidaan tilmaamnay maaha urur ujeedo yar oo gaaban loo abuuray. ha noqoto dee ururo badan waa jiraan, amba ha noqoto qaar NGO oo lagu qaadanayo amba qaar wax kale ujeedooyin kale ah, laakiin halkan waxa weeyaan qof kasta fikirkiisa siyaasiga laabta ku haysanaya. laakiin sidii ay dhalinta Soomaaliyeed ay isku maxay ahayday baran lahaayeen, iskugu xidhmi lahaayeen, waxna u wada qabsan lahaayeen. talabaad aynu soo taxaabnay waxa weeyaan xagga maxay caawin bixinta ama dee maxay ahayday in aanu ka qayb qaadno dib u dhiska dhulkeeni Soomaaliyeed. sidii aynu maxay ahayday maanta waxa fara badan dhulka Soomaaliyeed ha noqoto maxay ahayday magaalooyinkii waaweynaa, Jigjiga ha noqoto, Jabuuti ha noqoto, maxay ahayday Hargeysa ha noqoto, ha noqoto Muqdisho ha noqoto, waxa fara badan baa ka dhiman. waxaan rajaynaynaa dhalinta amba shaqo la'aan ha noqoto ama caafimaad la'aan ha noqoto ama maxay ahayday waxbarasho la'aan ha noqoto, bal sidii loo soo kabcin lahaa
oo ay noqon lahaayeen bal maxaa heeday insha Allah mid kasta dhan kasta inaynu ka caawino sidoo kale wacyigelintii taasoon meesha ka marnayn mar kastana qofka ugu badan waxaan horasaan kugu tixaabay inay faysinoo tahay xubinta noogu firfircoon ururka kala wada ururka maxay hogaamisa amba ruuxiga dhabta ay tahay faysa iyadoo ruuxiga dhabta ah waa qofka ugu firfircoon xagga tawciyada oo barnaamijyo ay biga ay ka soo gashaa jira oo mar kasta maalmaha axada isniinta arbacada khamiista maalmaha ay ka soo gasho taas kaga hadasho waayaha qurbaha iyo dhalinta Soomaaliyeed familiyada mashaakisha iyo qurbaha ay leedahay telefoonka wax nagu jira dhageyste soo dhawaad walaal assalaamu calaykum aad iyo aad waa ku maqalnaa soo dhawow فايزة soo dhawow walaal أهلا بكم أنا ولا نصف الصمد كلام عليها هذا قلب الكتير وحمد أهلا بكم أنا مرة صائد في مصر أصلا في كلام الصمد وحنا مرة بكرة بالنوع مع الفان كريستيان من الزمان حبيت هذا غيره حبيت هذا الكتاب صغيرة كان عاونات ومعرفة نستمتع لهم إن شاء الله. نمشي الحمد لله شهر رمضان في بشيء فتحات قدمنا في بشيء مارس سنة كان تدور إلى الله الله عشان يعني ورقة في بلاد من الأسرار ليش ما بين هاي لا كل فتح مهارات الميراث waxaan kala helnaa maaragtay shirkooyinka iyo whatsapp-kaba xaafis kala xiriiraan marka sana wax waa inta badan ka wadnaa maasha Allah xaaladda inaan ku sheegay iyo teraapiyada aad iyo aad dhageystayaasha haddaan dib daawadayaashina aan u xasuusino Faiza Cali Cabdi waa gudoomiyaha ururka Global Somali Youth Association oo aan filaynay in qadka telefoonka nagala qayb qaadato iyadoo joogto dalka Canada Faiza ku soo dhawow wax badan Cabdinaasir baa noo sheegay Global adigana waxaan rajeynaynaa in aan afkaaga ka maqalno sidoo ururku dhisan yahay iyo sida ugu dhabar adeegtay iyo waxyaabaha idin qabsoomay ما شاء الله زيادة ما إذا أنا مرة وحشان إنه قطع بقنا إنه قنا أورد إنه وخاتم فقط معي بحقه لأنه كمان نجعل من الوقت محتاج إنه مدرسة كبيرة عشان يكون فرصة إنه مش هنا بعد كده فلخص إنه أفهم في طلبات في شغلنا نكون حياتها أكثر من نوع واحد معي aad iyo aad Faiza waxaan filayaa in qadka telefoonka uu ka damay Faiza daawadayaashana sharafta leh barnaamijkeena uu noo soo socon doona balse qadar yar waxay siin kadib
telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda soo noqod wanaagsan daawadayaasheena sharafta leh ee barnaamijkeenii aan maanta ku soo qaadanaynay ama aan kaga hadlaynay ururka Global Somali Youth Association ayaan gudaha kaga jirnaa basada aan idin xasuusiyo barnaamijkeena waxa marti inoogu ahaa Cabdinaasir Ducaale Cabdiraxmaan oo kamid ah ardayda wax ka barata dalka Suudaan kana mid ah ama xubin ka ah ururka aan maanta aan halkan ku baranayno waxyar ka hor waxa qadka si toos ugu jirtay Faiza oo ah iyada gudoomiyaha ururka balse qadka uu ka go'ay Cabdinaasir hadii aan sii wadno ama aan hadalkeeni ururka hadaftiisa si guud yani adoo maxaa yani waxaad ka taabatay waxyaabaha kamid ah in dadkii isku xiro horumar wadanka la gaarsiiyo yani ujeedooyinkiisa kale maxaa kamid ah yani hadafkiisa صح maxay lisaan hore oo kugu soo tilmaamay isku xidhka marka laga imaado waxaan sidoo kale la iloobin wali deegaygii Afrika oo dhan ay la ciiraysaa maxay ahayd wali in fikirkeega maxay ahayd maskaxaaneed in la kobciyo taas oo noqonaysa mid maxay ahayd noqonaysa waxbarashada lagu kobciyo ha noqoto maxay ahayd wacyigelin kale oo si guudaha lagu kobciyo waxa ururku aad maxay ahayd u saara diirada sidii dadka amba maxay ahayd ha joogan qurbe amba ha joogan dalka gudihiisa waa mid walba waayihiisu wataa dadka qurbuna waayahooga wataan oo de Soomaalidii lagu aqoon geel jira oo qurbihiina la tagay hawsheedii iyo caalam kale iyo de maxay ahayd halku ka yimid caalam kale oo maxay ahayd kala tagay weey taas waa mid sida dadka qurbaha waxyaabaha haysta sidaan ula wadaagi lahayn waxyaabahaas ay u xalin lahayn sidoo kale de maxay ahayd geeygeena Soomaaliyeed oo mashaakisha halka haysata kuwa ka sii daranba uu haysto sidii maxay ahayd la dagaalanka maxay ahayd shaqo la'aan ha noqoto waxbarasho la'aan ha noqoto caafimaadka ha noqoto sidoo kale sidii de isku xidhka waayo markasta oo la helo urur la isku xidho marka la leeyahay la dagaalanka qabyaaladu de qabyaalad la dagaalan ma noqoto ilaa qofkii waxa uu qabiilkii ugu tiirsanaa ilaa uu meel kale ka helo sidoo kale qabiilka aslan Soomaalidu imika qabiilka waxa ugu tiirsantahay saddex wax kow inuu maalka ku ilaashado laba in maxay ahayd hadii wax soo gaaraan loo doodo iyo saddex in cirdigiisa iyo dawxiisa lagu ilaalinayo laakiin hadii uu helo urur intaas oo dhan u bahaleynaya da wuxuu ka sheegtaa ma jirto markaas qabiil uma baahanayo yani qabiil uma baahanayo halkaas ka baxaysa marka yani ururku mid xuquuqda dhalinyarta u dooda meel kasto geeyga Soomaaliyeed ka joogto aan ahay mid ku kala xidhan de waayihii siyaasadeed ee dadka Soomaaliga haysta oo maxay ahayd dadkii Soomaalidu kala siyaasad duwan yihiin in walba meel buu ka haysta laakiin waxaan eeganaa ujeedadeenu maxay tahay oo sideenu mushkiladeena dhalinteena Soomaaliyeed sideenu uga baxnaa inagoo de waayihii siyaasadeed iyo wixii halkaas ka dhigana laakiin inagoo wada jirna oo wada qabsanayna oo waxa ina wada haysta ee ah de Kenya Ras Gamboni la Ras Casir jooga Kenya Soomaali galbeed ilaa Djibouti jooga iyo ka Soomaali maxay NFD iyo maxay koonfur jooga iyo ka waqooyi jooga wada intaba way ka cabanayaan oo shaqo la'aan ha noqoto waxbarasho la'aan ha noqoto caafimaad la'aan ha noqoto sidoo kale maxay ahayd de wacyigiiyo aad hooseeya markaaba inta sidii ba loo kaabi lahaa inta ba loo dhisi lahaa sidaas oo dhan sidoo kale caawintii de maadaama masaa'ibtii ayna jirin maanta de maxay ahayd ururo caalami oo amba sidee ururo Soomaali oo badanka ka sii qayb gala bal hadana inaanu ka qayb qaadano dadkeegii masaa'ibta dabiiciga amba ha noqoto maxay ahayd fatahaado
ama abaar ha noqoto ama masaa'ib maxay ahaydey dee dadku ay dhexdooda ka geysteen oo dagaaladii ha noqoto waxyaalaha kale ha noqotee bal sidii aan uga qayb qaadan lahayn dadka tabaalaysan sidii maxay ahaydey maxay ahaydey caawin lahaa looga qayb qaadan lahaa inay helaan dee maxay ahaydey waxyaalaha asaasiga u ah amba biyo ha noqoto sidoo kale geygii soomaalida waxaa la moodaa inay biyuhu aada imika mashaakisha ugu badan ee hadda dhacday ay ku jirto bal sidii haddana aan intaa uga qayb qaadan lahayn horumarintaas iyo ka qayb qaadashada maxay ahaydey dee mandarka maxay ahaydey maxay horumarineed ee kasoo ifbaxaysa geygii dadka Soomaaliyeed degayn insha Allah يا رجينا إن شاء الله رجينا أنا كل كفتمي عبد ناصر ururka gabar baa madax ka ah Soomaalidana oo garanaysa gabdhaha meesha ay ka joogi jireen hadda waxaan filayaa in horumar badan la gaaray ururkana wuxuu ka kooban yahay rag iyo dumarba yani hal dumar bas ma ahan marka ma ku qanacsantihiin inay gabar idin hogaaminayso mise waxa weeye waa ku qabatayba idinku tahay horta waa sidaas tilmaamtay horta waxa weeyaan markaan nimaadno caalim cilmi oo siyaasa dee maxaa ahaydey lama eego maxaa ahaydey hebel baan inee yaa kartila la eegaa Faysa waa qof seen tilmaamnay kartile karti ay ku hogaamiso karti ay iskugu xidhi karto dad waa qofka waxa laga eegaa markuu wax hogaaminayo ka maqan iyo ka jooga sida looga warhayo sida arin kasta looga soo dhaadhiciyo يعني فيسا وقف على شخص ولا حديد دتك كل احترا كسر دعسة لما أنت كي وده أبديت قريسنا ووضع إصلاح استوى إصلاح كان قاضية تقف كاس وحاول ملانا ملاها كرتي دا قف رجع معنا لقى هلا ينبغي كده هدي شو كا وقف محيط أوران كرنا ده كرتي دي له قف كنا كرتي دولي هاي ينبو حكوه جامية وحنا رجعنا إن شاء الله ده محاها ده هدارها بيدمو إن محاها ده سدا يسكسي في عنبا إن شاء الله هو جامد ننطق الركعة هدارها أوروبينا حنفليه مركب إن هواينك وبدين همسة وسكود اللي تريها والله مركب دينا عادي سيد مالها عنا جاوا كبدن بين الموضوع لكن مركب وحقوشة الله يجا ونجا وحفظن ما دام يوركيو جامينا يعني ضدك محاها هذا برنامج كيميك التوعية أو كله برنامج هذا أوجو بدن واحد ياريا الله بها ويانا أوجو بدن يعني سوتشي ضدك سيدي لو وعي قلنا لها فيسا قبل كلا يد محايد السعودي شوكته وركسن ليه هذا وكلا قيب قاعدة تاجرته ده واحد بدر ران كرتين حق رجل لو ملها لو جهر ديريجيبه أو إن اللي جف في الفرعونية أورك دحيسة ده اللي قف كنتوا في الفرعونية بدي محايد وإحنا هو جامين كنا عادي وحنفيل يا دي سومالي ما يجهر يعني هواينكم قاعد بدي حبيسي من جرين مركز حنفيل أنا قاعد مديك مادين وحياة بدن لو قدم بيو وهذا كرتي ضي وحقبت كذا marka ururkan maadaama Soomaaliya markaan eegno ama wadamada dhan waxa jiro ururo badan oo magac sheegta kuwa diin sheegta kuwa kan sheegta yani way kala duwan yihiin ujeedooyinkooda marka wayna badteen marka ururkan global maxaad isleedahay kaga duwanaan doona ama kaga duwan yahay ururada kale oo jiro saddexda in soo tilmaamnay uu kaga duwanaan doona kow ma garan karno urur intaas oo qaaradood dad kala jooga isku xir kare dhalin Soomaaliyeed de taasi waxayba noo tahay maxay ahayd ka global ahaan iyo maxay ahayd ka Soomaali ahaan urur de midayn karayaba dadkii Soomaaliyeed geeyga Soomaaliyeed oo degay oo meel ay iska wada dhex arkayaan insha Allah maxay ahayd ay noqon karto talabaad oo ah de maxay ahayd waxa la caawiyo laakiin caawinaadeedii geeyga Soomaaliyeed oo dhan inay gaadho mika maxay ahayd muqdisho ka bixinay boorama haddana waa hadii ay noo dhacdo maxay ahayd insha Allah inaan jijiyay gaarsiino Djibouti geeyno oo gaarisa geeyno inta waan rabnaa ma malaynayo urur Soomaaliyeed oo intaasba ka shaqeyn karaya inuu jirayo sidoo kale wacyigelinta de maxay ahayd waa jiraan ururo si khaas ah wacyigeliyo walibana de investment meel keenay laakiin ururkan waa urur dadka ku dhex jira ay jeebkana ka caawinayaan inay wax qabtaan yani waa laba wax bis ku jira kow memberiska dadka ka ah iyo dadka maxay ahayd invest gareyn waa isla iyagii qofku markuu waxna bixinayo wixina sameeyo waa itqaaninaya aan filaya laga yaabo urur farbayn meelo kale dacmi ka helaan waxaas ka helaan laakiin ururkan wuxuu ka sii duwan yahay intaas oo jeer iyagoo waxaas oo dhan inay qabtaan hadana doonaya dacmiga meel kale kama keenayaan dadka ay dhexdooda yani waxyaabaha kuga duwan yahay waxa laga yaabaa sidii yani in ay
lacagaha iyo waxyaabahaas ama dhaqaalaha oo iyaga dhexdooda ha dhaqaalaha yani maadaama ururku waxyaabuhu ka sii dhex duwan yihiin maadaama memberiskii dadka ka tirsan wadad على شخصي بدن كوجس كيا ورهايا بعدين ده كل يضو هالكلا كلا شوجا واحد دعي كرتا شخصيات كأورك دحدي ساينة وحيابة كسر عام يعني شخصيات كأورك دحدي ساينة يجو دحدو داتو أي سعاون أي كده دعوة وأيو مؤجن قدر كمؤجن واحد كست مؤجن أورك وحيابوك قد ونكر اسكحرك أنت هسوقف يضو قارة ذلك كلا شوجا أي حد أنا لسكورها يا هي بالهلكو كم مقني سدو مقني هتوح نوصنا يو هدي واحد كلا تيران يو حرام با أدنى waxaan uga amaanayaa walaasheen maxay faysa oo markasta ka qayb qaadata markastana maxay ahayd inay dadka isku soo xidho meel kale isku wada keento saxan kaliya wax laga wada cuno iyadoo intaas oo dhan la wada joogo ay maxay ahayd qabata aad iyo aad u mahad celinayaa markasta Cabdinaatir waxa ku nooshahay dalka Suudaan wax ka barataa waxa jiro ururo yar yar oo jaamacadeed waxa jiro ururo guud oo siyaasadeed يعني سجود دلك منو شرح كرتا الرضا وقالدا كجرو يعني قابك وشقيان iyo adiga maadaama aad urur xubin ka tahay oo wax badan aad ka ogtahay marka dalka Suudaan ay arday badan joogan oo ururadooda ay kala duwan yihiin magac walba ha ahaatee yani wax ma nooga sharxi kartaa ururada ku yaala dalka Suudaan iyo sida qaabka ay u shaqeeyaan horta ururkan anoo Somali Global Association ku jira urur waxa jiray la yiraahdo wada jir oo Suudaan ka jiray isagu oo qayb aniga gandaad ku ahay walibana maxay ahayd xubinta tanfiidka saraka ahay saan xagga kale ugu jiro maxay ahayd ururada kale kulli ururadu waa kala duwan Suudaan urur siyaasadeed baa jira urur maxay ahayd thaqaafiya jira urur isku xidho rawaabidii maxay ahayd ha noqoto gobolada maxay geeyga Soomaaliyeed nin kasta beelku ka yimid raabida isku xidhaa jira haddana itixaadkii guud oo isku xidhayay baa jira de mid kasta waayihiisu leeyahay qof kastana horta marka uu halku ka shaqo galay inuu aad uga sii warami karaa ururka wada jir waa urur badanka maxay ahayd ka maxay shaqeyn jiray buu ahaa حاجة ثقافية يعني كتبته وليبنا واحد شري برنامج عن قانون ديجيالول كوبعينتا أفكار صومالية وحنا قانون ديجيالول أنا بحني مركب بدن كوحة اللغة نقاشة أو اللغة تفاتيرة أو المحيط عن كو إغنا عن كو قاعدة ديكنا بوقت أفكار صومالية إن فرق بدن إن كستو دي دورة دي الحيلة قاعد أماته ومحيط إن دورة هادنا وحرجينا إن فرق بدن إنه برنامج كديجيالول وسيسعون دونه maxay ahayd xirniga horeesayo maxay soo waday iyaguna waa jirtaa oo inta xagga soo geeyo soo aasaasay ururku sidoo kale ururkaas wuxuu leeyahay majalad ku soo baxa afka Soomaaliga majalad loo yaqaano baraarug aad iyo aad Cabdinaasir waa isku soo laaban doonaa ururka wada jir wax badan baa ka ogaan doonaa asagana qadar yar oo xayisiin kadib telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshadeynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda
soo noqod wanaagsan daawadayaasheena sharafta leh mar kale iyo Cabdinaasir iyo ururka wadajir sida intaxaabnay ururkaasi wuxuu soo saaraa sidoo kale majalad ku qoran afka Soomaaliga laakiin majaladaasi waxaa lagu soo bandhigaa mowduucyo ka gaabsanaya xagga siyaasadda laakiin aafaadka Soomaalida haysta waxyaalaha yani mowduucyo geeyga Soomaaliya dhamaan khuseeya ha noqoto deegaankii ha noqoto wacyigelin ha noqoto maxay dhiirigelin ha noqoto deegaygii si dabiiciya si toosa iyo si maxay kastaba maxay uga waramay laakiin mowduuca aan ahayn xagga siyaasadda oo ka gaabsaday marka yani sidii af Soomaaliga bal qoridiis aan ugu sii dhiirigelin lahayn dhalinteena Soomaaliyeed Suudaan ku sugan ay ahayd ma sha Allah baraarugday markii labaad ay soo baxayso iyadoo aan lahayn dacmi dibadeed amba dacmi kale aan lahayn laakiin ururku memberskiisu maxay ahayd Suudaan jooga yihiin maxay tahay ardayda Suudaan una yihiin aan meel kale aan ka jirin maxay ahayd de ay suura geliyeen inay soo baxdo sidoo kale shakhsi gaara oo aasaasiye ururka ah oo Qaahira ku sugan oo Cabdiladiif la yiraahdo oo maxay ahayd markasta dhiirigelintiisa iyo sida u tisqaadi lahayd arintaasi ka shaqeeya sidoo kale iyagu waxa mahad la teamkan wada shaqeynay wada jir oo si guud iyo si gaar ah iskugu xidhan sidoo kale waxa engineer nadra isagoo naga tagay hadda oo dadkii khariijay master in dhameeyay Hargeysa naga aaday waa ragga teamka baaldahaba ugu sugan waa ragga maxay ahayd ha noqoto xagga maxay ahayd gareenta waxyaabo badan ka caawinay ururka marka ururkaasi badanka wuxuu ahaa urur saqaafiya ama kutubta maxay ahayd saqaafiya luqad kale ha ku noqoto ku qornaato ama luqadeena ha ku qornaato laakiin aad iyo aad waxaan maxay ahayd u xoojin jirnay sidii loo kabcin lahaa daan barnaamijka ugu magac darnay ba dhigiyo lool sidii Soomaaliga loo kabcin lahaa dhigiyo lool marka taas waxayna tilmaamaysaa yani maanta af Soomaaliga wax badan ma jirto dawlad maxay central oo ilaalisa wax badan ilaalisa kutub fara badan oo la qoray oo aan niqaashno waa jira sida safarkii Richard Burton geeska Afrika ninka Ingiriiska oo qoraa Boodari oo soo turjumay oo Soomaali u soo turjumay sidoo kale oo taariikhda ka waramaya taariikhdii dadka Soomaaliyeed ka waramaya sidoo kale maxay ahayd Professor Cabdalla Umar Mansuur buugan uu qoray maxay ahayd taariikhda afka iyo dhaqanka Soomaalida halkay ka soo jeeda afkeega sidaas oo dhan uu qoray sidoo kale buugga dirka isticmaalada يعني بوقتها Soomaaliga buug fara badan oo Soomaaliya oo maxay ahayd niqaashni oo taxaabna wax badan lagu kala faa'iideystay oo ma hada urur meel kaliya urur shanta Soomaaliyeed ba min maxay ahayd gaarisa ilaa jigjiga la isku wada iman jiray oo kulay iyadoo dana meel la wada dago ay hadana kala dagaayo amba la hajadiilu kala duwan yahay amba wixii kala lagu kala duwan yahay yani madalaha ugu badan la isku arkay aad looga kaftamana way ka muuqatay marka sida hadda sheegtay ururada dad baa waxa jira qalad ka fahansan ama laga yaabo inay taageersaneen in urur laga mid noqdo ama ha ahaado siyaasi ama ha ahaado diini ama ha ahaado mid waxbarasho yani ka soo horjeedo ama aaminsaneen in uu faa'iido leeyahay adigu maxaad aaminsantahay yani ka mid noqoshada ururada ama dhaxgalka ama ka qayb qaadashada ama inaad xubin ka noqotid yani faa'iido may u leedahay bulshada ama ardayda ama dhalinyarada mise wax faa'iido ah uma lahan yani adiga sideed u aragtaa kaani ahaan ka fikradaha markaan hadlayo shakhsiga maanta ardayga ee Suudaan yimid kullay waxyaalaha ugu badan ee marka uu soo imaado lagu qofilo waa laga mashquulinayaa diraasada sida laakiin qofku markuu wax badan joogo wax badan waa kororsanaya in urur laga mid noqdo waa in qayb nolosha kamid ah ka mid noqotaan aanu aaminsanahay way ururku wax badan buu furfuraya imika Somali Global Association xubin baan ka ahay waxaan isnaqaanaa intaas oo qof oo daafaha dunida ah haddii maanta hawla iga soo gasho kaliya على الأقل يفولين كرا. محاهدة واحد إسكو كاي حريانا وأوتشيد وقف كدين أوتشيد إسكو كين حرنا تسمعوا احترامتا ولا لك أوتشيد إسكو أدي حتى عددك ولا ده شيء هدي أوتشيد إسكو حلويدو أم بموضوع الولاي ويان وأدك تحس إسكو حرمان تدكنا وحي وحودانا وحودا قبسان مركب موضوع كودا ده حيو تدكنا تدك وح كوجو حري كرا مركب آد وح موضوع مشاركة إنسان
maxay ahayd meel aad ka maxay ahayd dee aad wax ka wada qabsateen laakiin qof halkiisa u taagan dee farkii fool ma dhaqdan filaya marka qofku wax badan buu furfurmaya yani ha noqoto isdhexgalka bulshada oo waxaad baran kartaa dee intaasoo qof oo kala duwan intaasoo magaalo kasoo dhex jeeda marka waxaan odhan karnaa yani taas waxayna tusinaysaa inay urur inaad ka qayb qaadataa welibana khaasatan aan waxaan odhan lahaa ururka saqaafiga dee kolley mid siyaasadeed aanu kuma biirin weli kumana tala jiro marka dhinac layla eegayo laakiin ururka saqaafiga ee dee dadka isku xidhkooga iyo maxaa ahayd sida global association aan sheegno kale waa urur wax badan anfici kara waayo kow dadkayga wax kusoo celinaysaa oo maxaa ahayd dee maanta maxaa ahayd dadkeeni tabaalasnaa waa lagu caawiyaa tani xaaja dhalinteeni baa isku xidhmaysa oo intaasoo qof oonad garanayno adduun kala duwan joogaad maxaa ahayd la xidhiidhaysaa oo istaqaanaan oo mawduucin ka dhexeeya oo qarad ujeedo gooniya ka dhexaysa ta saddexaad waa maxay wacyigelintii yacni waxaa adigoo ah qof waxbartay oo u yimid ummadda aad wax u baranaysa inaad wacyigelisid de urur ka hadlaya wacyigelintu laazim waa inaad dhex geshid marka taas waxay noo tilmaamaysaa in qofka shakhsiga ah ee wax baranaya meel uu intimaa ku yeesho mooyaane aanu ka maarmi karaynin يعني إنه ميل ومر والبر ميل حتى كسو قدبين كرو meel uu haa hiwaayaadkiisa kusoo gudbin karo marka Suudaan saan kuu sheegayay ururka wada jir waa urur u furan qof kastoo Soomaaliya inuu hiwaayadiisa kusoo bandhigo memberis naga mid ah jira oo wax qora aad waxaa jira nin maxaa ahayd imika Hargeysa Book Fair sheekadiisii lagu soo qaatay waa maxaa ahayd Mahad Ibrahim Yusuf la yiraahdaa waa maxaa ahayd de memberiska maxaa ahayd wuxuu ku dhex jira ururka wada jir wuxuu ku guuleystay hab qoraalkiisa uu nala wadaagay in fara badan farxanimadiisa maxaa ahayd hab qoraalka iyo wax oo dhanba waana waxa lagu soo qayb qaatay yani Hargeysa Book Fair saddexdii sheeke ee lagu soo qayb qaatay qof ka mid uu noqday yani marka ururkaasi wuxuu noqday urur hiwaayada qofka tixgeliya يعني قف كستو هواية أما هب قرال هنقطه أما وحسو تشيدين هنقطه أما هواية قارة هنقطه وأر وكسو بندقان كرو ومكو أقبالي كرنو قف كدمر كنا يراو حاسان هيا ساسويان وأدي مركز تسودوين sidoo kale maxay ahayd the global association oo ah isagoo urur maxay ahayd han noqdo qofkii fikir haya in dhalinta lagu soo kobciyo sidoo kale fikir yani qof meel uu wax ku baxsado sadaqa u baxsado waxa uu wanaagsan de qof u baahan inuu siiyo global association waa meel de aan ka madnayn inaad sadaqa la baxid oo waayo marka nilada members waa meesha iyagu haddana inay dadkii isku xidhaan doonaya haddana maxay dadkii caawiyo doonaya caawintii meel kale laga soo qaadmaya dee dadka jeebkoogun bay ku noqonayaan marka dadka memberskun baa laga dhex qaadaya marka yacni qofkii xataa doonaya inuu wax la baxo dee maxaa ahayd doonaya inuu maxaa ahayd dee wax maxaa ahayd qabsado amba ummadda wax ugu tarana oo meel uu wax ugu tari karayo taasi waxay koobsatay isku xidh wacyigelin iyo wax bixin intiiba waa meel aan koobsan masaajid kaliya weeyaan oo dee malaha aan lagu dhex cibaadeysanayno saan tilmaami karno masaajid aan lagu dhex cibaadeysanayno yani wacyigelintii qayb diintii kamid ah yani wax bixintii sadaqada iyo sadaqa jaariya ay ku dhex jiri karto iyo maxay isku xidhka iyo dee maxay diinta islaamku markasta inay dadku isku xidhnaadaan rabtaa marka waxaan oran karnaa waa masaajid guurayo magac kale loo bixiyay aad waxaan filayaa wax badan in laga faa'iideystay hadii noqon lahayd hatta hadalada aad ka dhawaajinaysay Cabdinaasir adoo ka faa'iideysanaya jaaniskan uu siiyay telefishinka New Africa maxaad kula dardaarmi lahayd ardayda Suudaan wax ka barata kuwa caalamka kuwa Soomaalida yani dhamaan maxaad kula dardaarmi lahayd horta waxaan kula dardaarmi lahaa kulli Allah ma hadlay oo inoo sugay oo ina siiyo fursad ama dalkii joog ama meel kale wax ka baro dhamaan alla fursadina siiyay fursadda Ilaahay ku siiyay inaad bal uga faa'iideysid sidii dalkaaga iyo dadkaaga iyo ummadaada aad ku anfici lahayd cilmigaad baranaysid ha u baranin dhaqaale ha u baranin wax kale laakiin ummadaada inaad ku anfacdid ummadaada aad ku horumarisid ummadaada aad maxay ahayd kor ugu soo qaadi lahayd ummadaada aad maxay ahayd aad noqon lahayd mid ka qayb qaata hab dhismeedkeega horumarkeega iyo maxay ahayd hiigsigeega intaba mid maxay yeesha in maxay ahayd mid noqda ayaan maxay ku dadaalnaa khaasatan ardayda Suudaan way waaya badan tahay
oo maxaa ahaydey dee waayahaygu qof dee loo dhex joogun baa garan karaa صح marka maxaa ahaydey qofku dee kolley wuxuu sabir ku dhaamo lawaa هي dee waa sidii la sheegaya wiil soo wareegay wuxuu sabir ku dhaamo lawaa weeye marka qofku Suudaan dee duruufaheegii xaraaradeedii wixii oo dhan markay dee kugu soo wajaho kaliya waxa kaga bixi karnaa sabir insha Allah bal dee diraasada in loo sabro hawsha iyo wax kasta in sugaysa in uu sabirno dambiyeegana waxaan goosan doonaa markaynu insha Allah dalkii iyo dadkii umadiiba dib aynu ugu noqono insha Allah waayo dal iyo dad bayna sugaya marka lagu la soo leeyahay dee dadkii waxa oranay hebel baa noo maqan dee qofkii maqnaaya dhan adigoo dad kugu sii xisaabtamayaan intaas oo dhan u maqnaa dee markeen haddaynu kula noqono meel sacbo maran kolley dee wax laga wacay weeye ka xarajinaya insha Allah dee nin Suudaan yimid koleelka nin isku dhigayo raaxo u yimidba ma aha waxaan oran karnaa wadamada kale waxay kaga duwan yihiin dee waa meel la raaxaysan karo laakiin Suudaan ama maxay ahayd fiilo ku jira ama meel kale ku jiro waa meel maxay ahayd dee hawsheedu iska adag tahay saxaanadeedu waxeegu kulli qof kastaaba dee qofkaan joogi kareyn maba si xamila baan oran karaa dee semesterka koowaad baa doon xamili waayo waa laakiin inta soo hadhay insha Allah waxaan rajeynaya aniga ha noqoto dad kale kala ha noqoto bal insha Allah Ilaahay inuu ka dhigo kuwii uu ku anfaco dadkoogana ku anfaca insha Allah ta'ala hadaa rabbi idmo insha Allah ma santahay ururka Global Somali Association asaga iyo dadkiisa dhan asaga maxaa kula dardaarmaysaa ama maxaad ka dhahaysaa Global Association waxaan aan markasta leeyahay kulli hawshu way hana qaaday laakiin de hana qaadistu iyo maxay fadhi barad iyo hana qaadis baa kala duwan yani wali hana qaadistu fadhigii waan fadhigii waan baran laakiin waan hana qaadistu waxa u baahan tahay in lis adkeeyo oo la sabro haddun bayn maxay ahayd aynu wadada helnay bal aynu sabirno bal aynu noqono qaar maxay ahayd markasta sida iskugu xidhin iskugu sii xidhnaada ka qayb qaata maxay ahayd inuu ururku sii balaadho uu sii jiro uu noqdo mid maxay ahayd ilaa dadkeena ajiyaashin ay naga dhaxli karaan ay noqon karo urur dhammaan ina anfici kara aakhiriya adduunyada ay aakhiriya adduunyada deesan sheegnay de wax aakhiro loogu shaqaysanayana uu ku jira wax adduunyo loogu shaqaysanayana uu ku dhex jira yani aakhirada hadii noqoto maxay ahayd de sadaqa bixin wacyi gelin waxa soo dhan de wax adduunyada way ku jirtaa in nagiyo isticaalo dhamaan wada jirna hadii la arko de hawl maxay ahayd ka sii wacan marka waxaan oran lahaa insha Allah in hawl badan wayna sugaysaa sideen hadda u soo sabirnay si ka badan inuu sii sabirno ayaan rajaynaa insha Allah dhamaana waxaan rajaynaa insha Allah hadaa rabbi idmo inuu maxay ahayd Ilaahay in la si garab qabto oo maxay ahayd intii hiigsanna in ka fara badan Ilaahay noo suuro geliyo insha Allah hadaa rabbi idmo insha Allah aad iyo aad ma santahay Cabdinaasir Ducaale Cabdiraxmaan oo maanta barnaamijkeena martii inoogu ahaa wax badan naga baray ama nooga faahfaahiyay ururka Global Somali Youth Association oo xaruntiisu ay tahay dalka Canada sidoo kale waxaan mahad u celinaynaa gudoomiyaha ururka Faiza Ali Cabdi oo ayada qadka telefoonka nagala qayb qaadatay aad ayaan kugu mahad celinayaa Cabdinaasir daawadayaasheena sharafta leh barnaamijkeenii oo aan maanta ku soo qaadanaynay ama aan wax kaga baranaynay Global Somali Youth Association intaas ayuu noogu egyahay intaan barnaamij mid lamid ah ku kulmayno sidaas nabadgelyo